سبيل الدموع سبيل qofka muslimka ah habka uu u soconayo adduunyada noloshiisuna ay deganaansho ku heli karto warwarka iyo walaaca iyo walbahaarka iyo u qaadan waaga waxa la yiraahdaa uu kaga yaraan karo sida qofka marka ilaahay waxyaabaha tafdiilaadka dheeraadka uu wax ka siiyo indhuhu way soo eegayaan afkuna wuu hadal hayaa gacmahana waa lagu fiiqayaa haddii ilaahay aqoon siiyo hadduu adduun siiyo idan marka aad gabalku uu ku dhaco subaxdii ha sugin marka waagu ku baryana galabtii ha sugin waqtiga aad taagan tahay ku xisaabta cimrigaagana ka soo qaadaarin kariya ma madaafata wixii tagay inaanu qalbigaaga aad ugu soo noqnoqonin oo aanu ku dhibin oonad habeenkii ka seexan waayo oo waxyaabaha dadka nolosha ka xumeeya waxa kamid ah iyagoo aad u sii eegaya wax ilaahay cid kale uu siiyay تقال العثار العظام به ويرد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله محاضرadu waxaynu oran karnaa ama kelmadan oo ku jahaysan qofka muslimka ah habka uu u soconayo adduunyadan noloshiisuna ay deganaansho ku heli karto warwarka iyo walaaca iyo walbahaarka iyo u qaadan waaga waxa la yiraahdaa uu kaga yaraan karo marka qofka dhibaatooyinka haday dhibaatooyin haystaan iyo haduu wax tabayo iyo diiqadu gali lahaa iyo duruufaha sidoo xallinayo ee aan ugu dawaqeen waa nasaaix iyo talooyin culimadu ay mufakkiriintii ka qoreen oo aynu soo urursanayno inta waqti waynu ka gaarno insha Allah aata koobaad waxa weeye fakkir washkur marka hore waana fikirtaa ilaahayna u mahadnaqdaa subhanahu wa ta'ala waxaad ka fikiraysaa wuxuu ilaahay ku siiyay faraha badan halkaad meel kale afka u taagi lahayd oo waxyaabaha dadka nolosha ka xumeeya waxa kamid ah iyagoo aad u sii eegaya wax ilaahay cid kale uu siiyay ilaahayna wuxuu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nicmooyinka ilaahay haddaad tirisaan ma koobi karaysaan marka maxaa lagu siiyay caafimaad iyo cunno iyo dhar iyo dhooni iyo biyo iyo hawo hadda waxa aad hayso horta adigu ee dad badan aanu haynin taa ka fikir ilaahay wuxuu wa asbaqa calaykum ni'ama ظاهرة وباطنة إلهي نعموين كيسو آددين كبدي نعمة موقتانا ويترتاه مد قرصوننا ويترتاه وأطومه تا قرصون وحي قرتان مركي وايان نعموين واحد جراء مرك هرأينان آد بو دريمين لكن مرك أو أطون كنافان نخترد أو كوايو لعكتي سنة أو كوايو أيو آد وقفكراو هذا ورطانينا مبان درين سنين بيه iyaduna maciimooyinkay ku jirtaa ilaahay baa wuxuu dhifay bi ay aalaa rabbikuma tukadhiban jiniya insiyo nicmooyinka ilaahay uu idin siiyay faraha badan teeba beeninaysa marka qofka humuumta iyo diiqada uu dareemayo waxyaabaha ka fududeynaya waxa kamid ah shayga loo yaqaano inuu ilaahay u mahadnaqo waxa ilaahay uu siiyayna uu aad uga fikiro waxa labaadoo nasaa'ixa kamid ah ma madaafata wixii tagay inaanu qalbigaaga aad ugu soo noqnoqonin oo aanu ku dhibin oonad habeenkii ka seexan waaye waayo ilaahay waxa uu inoo siiyay wax la yiraahdo ilowgaasi waa dawo weyn ilowaynu la yaabsanahay ee aynu leenahay ilowgiiba igu batay hadda danteennaba weey haddii wax walba aad xusuusanto waxaad ilaawaysaaba aanu jirin oo daakiradaada iyo xusuustaada waxa la wixii muruga ahaaba aanay ka tagaynin mabaad seexan karteenba geeridii baad ilaawaysaa balaayadii kugu dhacdaad ilaawaysaa wixii ku dhaafay baad ilaawaysaa dan iyo maslaxad ba inoo tahay waxa la yiraahdaa tadakkuru al-maadi wa tahazunu qatlu lil-irada qofkii oo xusuusta wixii dhaafay oo ciil iyo carab uu go'ciil kama kala noqda waxa weeye qatlu lil-irada qofka go'aankiisii iyo horumarku sameyn lahaa bay ka dilaysaa idan cinda al-uqalaa yudwa wala turwa wala iska laaba safxada
oo laguma celceliyo laba qofka hortiisa u neetaalo maaha wixii dhibaatooyin ahaa iyo wixii dheefa dhaafay ilaahay baa wuxuu yidhi tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtu taasi waa ummad tagtay sideedaa ku dhaafoo idinku shaqaysta weeye yowmuka yowmuk waxaa ka mida nasaa'ixa ah maalintaadu waa maalintaadii maalinkaad taagan tahay maalinaad iska leedahay weeye oo aad ku xisaabtami karto idan marka aad gabalku uu kuu dhaco subaxdii ha sugin marka waagu kuu baryana galabtii ha sugin wakhtiga aad taagan tahay uun ku xisaabtan cimrigaagana ka soo qaad maalin keliya inuu yahay maalinkaas saacadihiisa sannado u qaybi daqiiqadihiisana ayaamo idan markaa ka faa'iidayso ayuu ku dhaafi dadkana had iyo jeer waxaa ay ku kala horumaraan wakhtiga jooga kolba sida ay uga faa'iidaystaan cabdilaahi binu mascuud allaha ka raalli noqdo waxa uu lahaa waxa aan ugu murugo badnahay maalin intuu ii soo galay iga baxay oo cimrigaygiina naaqusay camalkaygiina aanu kordhin cimrigaygii wuu naaquso maalinkaasi way dhaafay laakiin camal maalintaa ii kordhay ma jiro ila cilmiga laftiisii waa camal waxa aan ugu murugo badnahay waa kaas ilaahay baa wuxuu uhi wakhud maa aataytuk wa kun min ashaakiriin waxa aan ku siiyey qaado kuwa mahadnaqana noqo nasaa'ixa waxaa ka mida utruki lmustaqbala xataa ya'ti mustaqbalka soo socda iska daa ilaa intuu imanayo dad fara badan baa iyagana waxaa dhibaato ku haya mustaqbalka iyo warwarkiisa gaajay ka warwarayaan faqri bay ka warwarayaan balaayay iska warwarayaan marka warwarka faraha badan ee mustaqbalka qofka haystaana waxyaabaha nolosha ka xumeeya weeye ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh arrimaha mustaqbalka waxba ha dedejisinina ayaa rabbi wuri subxaanahu wa tacaala oo iyada oo qofkii axdaafta iyo dhacdooyinka uu ka horu maro waxay noqotaa ijhaad umuurtiisu way dhicisaa qofkaa oo wuxuu ka dhignaanayaa uun qof midhihii goosanaya intaanay gaadhin wakhtigii bisaylka marka waxaad ka warwartaa ayuu jirin shaydaankuna waxa mustaqbalka la xidhiidha ee warwarka uu kaaga hayo ee aad ka seexan laadahay iska dhig ilaahay baa wuxuu uhi ashaydaanu yacidukum alfaqr waya'murukum bilfaxshaa wallaahu yacidukum makfiratan minhu wa fadlaa shaydaanka waxa kalgeedka shaydaanka la idhaahdaa kaa mufsidka ah ee magacaa la baxay waxa uu idiin yaboohayaa faqri iyo foolxumo mustaqbalka ku saabsan ilaahayna dembi dhaaf iyo fadliya dheeraad buu idiin yaboohayaa nasaa'ixa waxaa ka mid a kayfa tuwaajih annaqda alaathim had iyo jeer qofka bani aadamka ah dad fara badan baa ku soo jahaysan weliba qofka marka ilaahay waxyaabaha tafdiilaadka dheeraadka uu wax ka siiyo da indhuhu way soo eegayaan afkuna wuu hadal hayaa gacmahana waa lagu fiiqayaa haddii ilaahay aqoon siiyo hadduu adduun siiyo hadduu awood siiyo wixii ilaahay uu qofka siiye dheeraadaba waa lagu hadal hayaa idan markaa taasina yay noqoni wax niyadda kaa wasakheeya waxaad ogsoon tahay nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam in la caayay oo qaar wakhti hore jooga iyo oo wakhtigiisii ahaa iyo qaar hadda jooga labadaba inay caayeen baad og tahay nin shaacirabaa waxau ihi xasadulfataa idaa lam yanaaluu sacyahu faannaasu acdaa'u lahu wa khusuumu qofka dad badan baa marka ay dadaalkiisa gaadhi waayeen cadow u noqday lana murmaya marka ha ku fikirin an takuuna maqbuulan lada aljamiic saaliman min alcuyuub cinda alcaalam haadaa mustaxiil inaad dadka agtoodao dhan noqoto mid laga qaadanayo oo cidi aanay ka hor imanayno gacmo furan lagu soo dhowaynayo taasi maya rasuulkii iyo rusushii ilaahay baanay ka dhicin sidaa daraaddeed haddii qaar ku caayaan ama wax kaa sheegaan in badanoo ku ammaanaysa in badanoo ku taageersan in badanoo waxa wanaagsan ee aad waddo soo dhowaynayaa jira marka taasina inay nolosha dhadhankeeda kaa lumiso maaha nasaa'ixa waxaa ka mida laa tantadir shukran min axad qofnaba ha ka sugin inuu kuu mahadnaqo oo dadka ha odhanin wax wanaagsan baan wadaa oo cilmi leh oo infaaq leh oo waxtar leh oo dan guud leh maxay wax iiga sheegeen ama ay igu mahadnaqi waayeen oo marka xafladaha laga hadlayo iyo marka warbixinaha la qorayo iyo marka taxliilka la samaynayo haddii laguba soo qaadi waayo
ka fikir in ilaahay agtiisa un lagu soo qaadi doono oo xuska ilaahay u baad ka sugaysaaye laa tantadir shukran min axad haddaad doonayso noloshu inay macno kuu samayso dadka mahadnaqooda iyo ammaantooda waxba ha xiisaynin ilaahay baad abaalmarin ka sugaysaa subxaanahu wa tacaala hadday macruufkaaga diidaan iyaga oo u diidaya liannaka axsanta ilayhim xataa inaad u samafashay adoo u samafalay hadday kula soo qaadi waayaan ha ka sugin ilaahay baa wuxu uhi wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allahu warasuuluhu min fadli waxa ay kula dagaalameen rasuulka iyo mu'miniinta in ilaahay iyo rasuulka uu qani ka dhigay ilaahay baa qani ka dhigay rasuulkii baa qani ka dhigay oo wax siiyey haddana nacaybshiye iyo colaad bay kala hor yimaadeen mabay u mahadnaqinba qur-aanka waxa ilaahay uu tilmaamay qofka gaalka ah marka hore ilaahay buu baryayaa marka uu dhibaatada rabbi ka dulqaadana ilaahayba uma mahadnaqo marra kaan lam yadcunaa ilaa durrin masa wuu iska sii soconayaa waxaabaad mooddaa kii aanna baryinba marka addoommo badan baa markay baahnaayeen ilaahay baryey subxaanahu wa tacaala markaasuu ilaahayna dhibkii ka dulqaaday kadib ilaahay bay u mahadnaqi waayeen adiguna waxba mahadnaqa ka sugin kuwooda aad macruufka u samayso dhib badanoo dareemi lahayd markaa waad ka nasan doonta nin baa gabyayoo waxa uu mahad iyo abaal ka waayey inaanuu u samafali jiray oo uu koriyey kiibuu ka cawdayoo waxau idhi ucallimuhu rimaayata kulla yawmin falamma ishtadda saaciduhu ramaanii maalin walba waxaan baraa shiishka waxaan baraa horumarkiiyo awoodda markuu muruqiisii adkaaday anigaabuu igu dhug bartay buui aniga laftigaygii ayuu shiishkii iga bilaabay intuu wax igu tara iska daayo marka ummad badan oo aad ixsaan u samaysay ayaanad abaal ka helayn qaar kale ayaa waxa wanaagga ah laga yaabaa inay kugu xaasidaan cidnaba mahadnaqa ka suginaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala waxyaabaha kuu dhib yarayn kara sacaadada ee ku siin kara weeye waxaa ka mid a nasaa'ixaas alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur waa kollay nasaaixna weyn hab qaaciidana way u socdaan alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur inaad dadka u samafasho laba midun bay noqonaysa inaad dadka adigu u ixsaan samayso ood u samafasho iyo inaad dadka adigu ka godob qaadato marka ta fiican ee had iyo jeer nolosha sacaadada iyo wanaagga u keentaa waxa weeye inaad dadka u samafasho arrin iyo adduun iyo aqoon iyo awood wixii aad ummadda dheer tahay isku day inaad noqoto kas wax siinaya ee iyaga aan waxba ka sugaynin marka waxaa la yidhaha aljamiilu kasmi waalmacruufu ka rasmi waalkhayru ka طacmi marka shayga jamiilka la yidhaahdaa magiciisaasunbuu la mid yahay shayga jamiilkaahi jamaal buu keenaa iyo qurux macruufkuna curfi iyo wanaagunbuu keenaa wixii wanaageed samaynaysa waxaa la yidhaha awalu lmustafiidiin iscaadu lmutafadiliin dadka had iyo jeer tafadulka iyo dheeraadka leh ee dadka isku daya inay waxu taraan waxtarka u horeeya iyaga ayaa leh waxtarka u horeeya iyagaa yeelanaya ilaahayna saasuu qur'aanka ku ammaano waxau uhi wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa abuubakar bay ku soo degtay baa laydha aayaddu cid alla cid uu wax kaga doonayay ma jirin cid abaal ku lahaydna ma jirin wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza marka abaalka ilaahay unbuu ka sugayaa idan ku xisaabtan inaad dadka u samafasho taasaana adiga nafis ku ah mar haddaanay gacan kaa sugayn aanaad adigu iyagu aanay wax kaa sugaynin iyaga un ay wax kaaga maqan yihiin nasaa'ixa waxaa ka midoo ka sideedaada udrud alfaraaqa bilcamal udrud alfaraaq bilcamal haddaad doonaysa sacaadada nolosha iyo maskaxda iyo qalbigu inay kuu nastaan waxaa la yidhaahda faraaqa oo ah qofku jaaniska uu haysto inuu ku buuxiyo shayga camalka la yidhaahdo walow ciyaar jidhkiisa dhisaysa iyo tababaraan khayrka ka mashquulinna ha noqdabe oo waxaa la yidhaahdaa alfaariquuna fi lxayaa hum ahlu lirjaafi waashaa'icaat dadka had iyo jeer jaanis kale ama faraaqa hayeen shaqaysanaynin waa kuwa ugu muran badan ee ugu munaafaqad badan ee ugu isku dir badan sidaa daraaddeed baa munaafiqiinta ilaahay uu ka warramo wuxuu yidhi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif waxay raalli ka noqdeen munaafiqiintu intay jihaadkii ka hadheen oo howlihii caamka aha ee ummadda ay ka hadheen
inay macal khawaalif dumarka guryahooda joogay ku hadheen marka hawloo dhan kolkii ay ka hadheen hadal bay isu taageen foolxun inay tiriyaan oo aad iyo aad ay wax uga sheegaan dadkii mu'miniinta ah rasuulku horkacayay sala allahu calayhi wasalam waana dhab weeyo sidaa culimmadu ay sheegeen in fara badan dadkeenna waxa ama qaylaadda ku kalifaya iyo balwadda waxa boolatiigga iyo fadhi kudirirka ku kalifaya dee waa faraaq qofku hadduu 10 saacadood shaqayn lahaa 2 saacadoodna midna uu sii socon lahaa midna uu soo socon lahaa 4 saacadoodna uu cibaadaysan lahaa waxa laga yaabaa cidba kii la hadlaba xoran la fadlan lacagi weydii waqti kuma hayeen adigoo iga raaliya wax waqti oo ku hayaa ma jireeyo waxa la toona aan karayaa waan soo daalo ama waxbaan karsanayaa ama dharkan maydhanaya ama in yar baan yara nasanayaa hore ka sii dhaqaaji booran la lacag waan ku siin karaa laakiin waqti kuma siin karo waa sida dadka adduunyada warda umadaha kale maanta ay u socdaan qofku waxa laga yaabaa in ay uga sahlan tahay inuu lacag ku siiyo inuu waqti ku siiyo salafuna saalixna saasay hay oo waqtigooda diinta uga faa'iideyn jiray أحد أعلام السلف بان جدك يستاغيو kolkaasaa wuxuu ii joogaa su'aalku weydiiyay lamu ballansanayn marka horay buu ka dhaafay maalintii labaadna wuu dhaafay maalintii saddexaad buu ku dhagayo wuxuu maalin walba waad dhaafaysaa bal maanta isu kaytaan wuxuu horta qorraxda jooji qorraxda marka aad joojiso ayaan anuguna joogsan doonaa inta qorraxdu socdo anna waan socdaa ee kol hadaa qorraxda la tartamaysa isku qolamayhiin bal ka sii dhaqaaji marka udrud al-faraaqa bil amal hadaa doonaysa inaad nasato oo aad mafsuuq noqoto taa ku dadaal sidaa daraadeed baa boqolkiiba 50 dhakhaatiirta caalamka cilmu nafsiga ka hadlaa waxay leeyihiin waxyaabaha u kasbi kara qofka sacaadada iyo inuu raaxaysto maskaxdiisu way nasato aanu warwarin waxa kamid ah in waqtigiisu buuxo oo shaqeynayo waliba qofka maskaxda ka shaqeeya waxa ka sii mafsuud iyo farxad badan qofka muruqa ka shaqeeya bayda sida midal dadka falaaxiinta beeralayda dadka dhisbayaasha ku jira dadka xamaaliinta ah yaciishuna kala casaafiir fi saadatin wa raaxa sida shibirahaasi ay uga geerarayaan kaynta dhexdeeda ay isaga faraxsayeen ba xamaaliintaasi iyo dadka dhisayay heesay iska tirinaya waxa laga yaabaa kii dirayna ee taajirka umuumiga ahaana ee lacagta u hayeyna inuu maskaxda isayo warwar u naftahayo waxa kamid ah qodobka sagaalaada min asbaab as-saada la takun imma'a ha noqonin qof daba socda ama sida waqtigan dambe ay yiraahna laga dhaxadlo ama dhaka cid kala xambaarsan ha noqonin afar baa ku soo arooray ibn mas'uud laga wariyo oo culimada qaarkood ay daciif ku ahaayeen ضعيف ay ku sheegeen idan marka waxa muhiim ah inaanad naftaada ilaawin la tansa nafsaka wa shakhsiyatak wala tansahir fil aakharin inaanad dadka kala ku dhexmilmin oo shakhsiyadaada iyo naftaada aanad ilaawin waa muhiim ila hadii dadka dhaxadlaan dhaka kala lagu xambaariyo waxaad ku dhawaaqaysaa afkaar cid kale unay noqoto oo nacamla dad kale aad noqoto waa musiibo sidaa daraadeed ayaad ogsoonaanaysaa bani aadamka sidan ilaahay uu kala duway muuqaalkooda ayaa mawaahibkooda iyo maskaxdoodana rabbi uu kala duway subxaanahu wa ta'ala marka mawhibada iyo maskaxda ilaahay uu ku siiyay adigu isticmaalo aqligaaga ku fikr qad alima kullu unaasin mashrabahum wa likulli wajhatin huwa muwalliha qof waliba mashrabna waa iska leeyahay jiha uu jihaystana uu leeyahay isaga ayay tahay inuu samaha iyo xumaanta kala miisaamo دليل كان الراعو قدر كتبنا النصائح كمدي وحوي الإيمان بالقضاء والقناعة به قفك سيو السعادة ونكسنه هلا وليسك إيا لورك إيا دبك هيستوقف ضلاده وأنه رميا قوانك إلهي إيا قرشيس وحا إلهي وقدره وأنه كقنعاه رميانا ساسو قرآنك إنبريا إلهي ما وحر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وحكست دباتي ماده إري دلبا إلهي باسي قدره كتاب خصقنا انت أنا إفك وبصوا بحنبا وحقران بي مصيبة داسهاي إذن مركا وحكست دعا هاو قادم واين قادم واين كون نقني عقيدة وناكسنين واسداس من يريد الله به خيرا يصيب منه
man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu nebiguna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay uu khayr la doono waxuunbuu soo gaadhsiiyaa marka dhibaatada soo gaadhaysa qofka waa inaanu odhan waayo sida had iyo jeer dadka diinla'aanta iyo kufriga uu haysto maxay ku dhacday wax kasta oo sababahoo keeni lahayd waxan inaan kaga gaashaanto waan sameeyey maxay igu dhacayaan saa daraaddeed baa rasuulku inoo diiday sala allahu calayhi wasallam markay wax dhacaan inuu qofku idhaahdo low annii facaltu kada wa kada haddaan waxaa samayn laha hadduu hebel halkaa waddadaa iska dayn lahaa miyaa gaadhigaasi la qallibi lahaa imise jeer baani halkaa ha mari hadduu waxa hebel ka hadhi lahaa balaadaasi miyay dhici lahayd low erayga ah haddii taftaxu camala shaytaan rasuulku waxa u leeyahy albaabka shaydaanka ayay kugu furaysa markaa xalkuna waxa weeye qadara allaahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay qadarayna ma baaqanayo adigoo sababaha qaadanaya aad ku nabadgelayso oo aan lagu lahayn naftaada dayac haddana qadarka ha ka soo dulboodin waana midh aynu dheernahay dadka diinla'aanta ku sugan oo dee 6dii arkaanu iimaanka maxaa ka mid ah aliimaanu bilqadar khayrihi wa sharrih dhib iyo dheef wixii ku soo gaadhaba waa inaad ogsoonaataa wax qoran inuu yahay